laakiin waxaa mucjis igu noqotay habeenkii asagoo igu qoslay madax ii salaaxayo dhaseexo orodoo wada kaftanay aan qolkayga aan dhanka awoowo aniga aan aaday asagana dhanka ayeeyo ama hooyadii saad u bataqaaniin uu dhankiisa uu aaday habeenkii markuu seexday subxina aadisaydi ay tahay waa taqaanaa odayaasha waxay kici jireen markii salaad subax kadib ay libistaan salaad subax markay ka baxaan ee shaqada aadi jireen marka aabbo aniga qolka ayeeyuu jiifa anigana qolka waxaan jiifa awoowe jiingadii marka qol jiingada uu ahaaye jiingadii aabbo ku soo dhacay markuu salaamo naqsado salaada ka baxay waxaan maqlay ashhadu an laa ilaaha ila allah jiingadii dhacayso fiir uu ku dhufanayo iyo ashhaadkii markaasaan anigii indhaha waan hurdo fududahayo nin waxaa ah mar walba awoowihiisu curyaana qol ku haayo waad ogtahay qofkaas wuxuu u baahan yahay maanta oran inaad u kackacdid hurdadii sidii iiga suushayo indhihii tartiib u kala yara qaaday markaasaan haddana maqlay ashhadu an laa ilaaha ila allah iyo jiingadii jubka yeerayso waa yaabay waxaas dhahaa mar walba ku salaada u taagay hadda uu aadaami jir ama aadaanka tahay haddana sidoo kale 3 mar markuu ku dhuftay ayaan orday oo qolkii ayay galay aabo meesha ku arkay wiil kale walaalkii ah cabdisaaq aadan halkan ka salaamay isagana ayaa markaas ana ku ordo hurdada aan ka kiciyay aabo meesha ugu imaanay garab qabanay kiciyo dhahay biyo isiiya banaanka u bixinay sida caadada ahaydba salli iyo barkin meesha u dhignay waan yaabanaa waxa aabo markaas ku dhigan aabo la taahayo aabo wuxuu ahaa qof aad iyo aad u xoogan diyaarsan aad u dhisan caafimaad qabay waa yaabanaa marka waxa aabo intaas xanuunka gaarsiinaya oo weliba degdega ah aabo ugu dambeyn gaari ayaan qof deriska ah lagala soo orday marka walaalkayo waxaa dhacday in aabo markaan adiga 4 qof aan ku qaadnay oo aan gaariga saarnay ayaa waxaa dhacday culays fara badan aniga dhankaygana waan dareemay in waxaaba la itusaba aabo uusan sii noolaanay markuu gaariga lala sii cararayay anigana markii aan khaylo afka ku dhuftay markaan khayliyey aan aadka u khayliyey oo aan niyadeedana aan ka dhaadhiciyaba aabo inuusan naf iigu soo laabanaynin ayaa meeshii miirka iigu dambeysaba waxaan soo kacay aabo waxaan uu markaas la sakraadayay waqtiga wuxuu ahayd salaad subaxii ahayd deetana waxaan soo kacay aniga oo aan soo laabtay gurigoo aad loo wada buuxo rag iyo dumarba ay wada buuxaan saacaddana ay tahay adiga 5 saac duhurnimo meelahaas aabana weli loo dhowaan waayo ayeeye ayaaba diidaba in aabo markaas loo gacan qaado ama loo dhowaado masameedkiisa la dhaqo ilaa aniga aan ka soo naaxo oo aan ka soo kaco asaga yaraanka ayaa marka aniga yaraan ayaa guriga u ahaa ayada ayaad jeclaysatay in aan aabo aniga isku dugo saacadda aan ka furo afka u daboolo indhaha aan u daboolo ugu dambeyn waa layla taliyey rag waaweyn oo meesha jooga ila hadlay aabo waxaa lahay liyo markaan nin weyn aan noqotay isaadkee aabana waxaa ku timaaday geerida laga duceysto mootulfajada ah isku day ayeeyin inaad sabar siiso ayeeyina hadalkeeda qaado ayeeyina gees u bixi gurigana ragga ha loo baneeyo aabo siya u dhaqaan aabana u tegay ayeeyii ogolaatay saacaddii ka furay isku dugay indhaha u daboolay afkii u daboolay labada lugood isku aadiyey ugu dambeynna rag kale ay hoosha galeen anigana ayeeye aan meesha ka waday aabana meeshaas ayuu ku tegay xafiido waa gartay allah u raxmado haddana waxa dhacday arrin kaloo ayada laftigeedu maaragtay xanuunkeeda lahayd oo ahayd in wiil walaalkaaya muqdisho dhexdeeda lagu dilay oo 6 xabadood ay ku dhacday dabadeedna uu geeriyooday oo waqtiga aabbo uu geeriyooday asaga ay u dhexeeyeen 2 ilaa 3 isbuuc arrintaa laftigeedu arrin xanuun ayay ahayd nin yar baad ahayd welina dhalinyaraa tahay culays fara badan baa kusoo food saaray 2 tiir oo waaweyn baa kaa baxay dhab ahaantii ayadana waa midda aan aadkaan ula yaabanahay hadda xafiido sida iskugu soo aadeen aabo marka aan soo duugaynay oo aniga laftigeyga aan sabri waayey dhacdada ilaan aabo markaas anaala joogo yarka kalena guri kalau lahaa oo iga weyn wuxuu ka mid ahaa raggii godkaba aabo in la galay carrada u dhoodhoobayey madax u saarayay mase dadka ay u dhidhiibayeen carrada in la dhoodhoobo markaas qofka meydka taakada looga dhigayo qofka aabihii gacantiisu ku duuga ayuu ahaa asagana axmed aadan cali allah u naxariisto 6 xabadood ayaa ninkaasi aabo ku dhacday oo anigana aan la yaabay oo aan aamini waayey markiina lasoo wacay ani yar kaloo walaalkii aan isla joogno subaxii guriga ayay aan ku haynay awoowe na la leeyahay ninkii walaalkiina ah halkaas ayuu yaalaa meydkiisii aniga waa aamini waayey gabar abaa walaashayga meesha ka carartay walaalkii meesha ku cararay mootooyin gaari la wada qaatay la wada baxay aniga waa aamini waayey mayaan dhahay macquul ma aha oo ma dhici karto
waayo waan aad ma u yaraa haddana ma aaminsanayn in hal family laba qof hal mar ka bixi karto oo degdeg ah weliba macquul ila noqon weysay waa iska soo kaca waan qubaystay wax caadiyan iska dhigay ilaa abuu iga soo wacay walaalkay kale markuu guriga ka cararay oo meedkii walaalkay indhaha soo saaray isagoo xabadaha ku yaalaan kadib markuu soo wacay walaalkay asagana oo oynaya ilaah waa run meedkiisana halkaasuu yaala aad baan u naxay meeshaan ka orday meedkiisiyaan dul tegey meesha askar fara badanaa dhoobneed familka qaar waa loo diiday inay arkaan asaga meedkiisa laakiin aniga waa ka biyo diiday waxaan go'aansaday ilaaba inaan arko meedkiisa inaan arko indhaha aan saaro waan ku sabro waan iswaalay aada isku waalay askartu waxay dhaheen yarkan aad u yar yahay ninkanna xabado fara badanaa ku yaalaan waxaa laga yaabaa haddii uu meedkaas indhaha saaro in uu saso asagana markaasi si naxtin leh nafta uga baxdo ayagoo markaa sharciga qofka bini'aadanka ilaalinayaan waa ka biyo diiday waa is adkeeyey waxaan xasuustaa in nin askariya jarnaal ah oo garabka inuu iga qabto dhaa soo daaye inuu dhahay muu adkeysan kartaa walaalka oo xabado ku yaalaan oo meeda inay indhaha saarto haa waa adkeysanayaa meeshii u geeyey karfantii oo dhiig la-aan ka qaaday garabkiisii labadiisa gaboodaan qabto waa caadiyan u istaajiyey waan ku sasay waan ku naxay waan ku qayliyey waa liga fujin waayey meedkii isagana axmed aadan cali isagana halkaas ayuu ku dhintay allah u naxariista saaxiib waa gartay waxaa kaloo jira qaybtan tacsiyadaas geeridaas dibajooga aan jeclayn aan kusoo gabagabayno qaybaha kale aan u gudubno waxaa jira sidoo kale ayeeye iyo awoowa laftigoodu inay muddo kadib geeriyoodeen ayna isku dhowaayeen ayeeye iyo awoowna laba qof oo aad ugu dhoweyd bay ahayd waxaa kaloo aan la socdaa in aad ahayd qof baari u ah oo mar walba raaligelintooda ku dadaali jiray maadaama ay yihiin waalid dad waaweyn ay ahaayeen waxayna tusaysaa xaqiiqatan aadba yaraatid oo dhalin yaraatide inaad garanaysay maaragtay waajibka ku saaran in waalidka loo baari falo bal soo dhawow geeridooda laftigeedu saameyn bay kugu lahayd adiga reerka intiisa kaleba soo dhawow si fiican maasha allah walaalkay maasantaa dacfiido sax waaye waa arrin ayagana mucjiso ah wallaahi bilaahi watallaahi waa la yaabay ayeeyo iyo awoowna ayagana dad waayeela ayay ahaayeen laakiin waxba kama aysan dambeynin aabbaha iyo walaalkay iga weyn muddo yara ayagana u dhexaysay waana midda sababtay in aan markaan awoowo isagana garabkayga uu ka baxay ayayna garabkayga ka baxday in riyada markaas aniga nolosha aan ka lahaa in aan sii ambaqaado oo aan sii wato